Dhismaha xarunta dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo dowlad goboleedka Galmudug waxa uu noqonayaa dhismihii ugu horreeyay oo dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ay si madax bannaan u yeelato. Inkastoo dhismaha hadda ay dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ay ku shaqeyso uu ahaa dhismihii santarkii xaafadda wadajir ee magaalada Gaalkacyo kaasi oo ay hirgelisay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, balse lagu kordhiyay dhismayaal iyo xafiisyo ay dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ku shaqeyso. Duqa degmada Gaalkacyo dowlad goboleedka Galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa kabaha u iladay sidii dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ee dowlad goboleedka Galmudug ay u heli lahayd xarun madax bannaan isla markaana taa oo noqonaysa mid ka baaxad weyn midda hadda ay ku shaqeyso dowladda hoose kana xafiisyo badan. Waxaana taasi ay noqotay in laga hirgeliyo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Inkastoo duqa degmada Gaalkacyo dowlad goboleedka Galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan uu door weyn ku lahaa sidii magaalada Gaalkacyo ay amni iyo xasillooni u noqon lahayd isla markaana iskaashi wada shaqeyn laamaha amniga dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland ay uga wada shaqeyn lahaayeen xaaladda gobolka, haddana waxaa barbar socday sidii degmada Gaalkacyo ay bilic iyo horumar u sameyn lahayd. Waxaana duqa degmada Gaalkacyo uu ku guuleystay furidda wadooyin waaweyn oo magaalada Gaalkacyo iyo dhismayaal kuwaasi oo noqonaya kuwii ugu horreeyay oo dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ay ka hirgeliso. Dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo dowlad goboleedka Galmudug waxaa soo maray mas'uuliyiin kala duwan, ha yeeshee waxa ay inta badan ku shaqeyn jireen xaruntii santarka xaafadda wadajir ee magaalada Gaalkacyo oo dhismayaal lagu kordhiyay. Ha yeeshee duqa degmada waxa uu ka doorbiday in xaruntaasi uu ku shaqeeyo in la helo xarun taasi oo ay dowladda hoose u madax bannaan tahay isla markaana leh dhismayaal hab casri ah loo hirgeliyo.